noloshu way qurux badan tahay ee ku raaxayso waa hadiyad qaali ah hana ka murugoon shalay waayo waa la soo dhaafay hana ka walwalin beri waayo wali lama gaarin ka fikir maanta kana dhigo maalin qurux badan in laga murugoodaa wixii tagay waqtiga ayuu kaa khasaarinayaa wixii tagay waa taariikh ma tirtiri kartid waxna kama bedeli kartid waxay ahaayeen wax qoran sabab ayna ku dhaceen bilow nolol cusub iska ilow wixii aad soo martay wixii ku dhaawacay wixii ku dhibaateeyey shaqo aad weysay guri kaa gubtay xiriir kaa xumaaday nin kaa tagay haweenay ku khiyaantay dhammaan iska ilow sababtoo ah ma soo celin kartid way dhammaadeen qofka maanta oo dhan ka murugoonaya wixii tagay waa qof raba in uu ilmaha la dhalay ku celiyo caloosha hooyada ilinta oohintana ku celiyo isha maalintiina ku celiyo habeen la soo dhaafay suurtagal maahan ee noolow hadda kuna raaxayso nolosha iskana ilow wixii tagay waa tagay fikirka ah waxaa fiicnaan lahayd haddii aan sidaa samayn lahaa iyo maxaan sidaa u sameeyey kuma caawinayso ee waxay kugu mashquulinaysaa fikir aan xal lahayn nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay haddii ay kugu dhacdo arrin ha dhihin haddii aan sidaas iyo sidaas samayn lahaa laakiinse waxaad dhahdaa qadarullaahu wamaa shaa'a facal hadalka haddii waxay kuu furaysaa shaqooyinka shayddaanka